warar kala duwan ayaa ka soo baxaya dil argagax leh oo habeenkii xalay ka dhacay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose kadib markii sida la sheegay nin uu wiilkiisu ku gowracay xaafad ka tirsan magaalada Kismaayo wararka aynu helnay ayaa intaas ku daraya in gacan ku dhiglihii dilay wiilkiisa oo goobta ka baxsaday waxaana goobta uu ka dhacay dilkan durba soo gaaray ciidamada booliska Jubbaland kuwaas oo magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose ka bilaabay hawlgal ay ku baadi goobayaan gacan ku dhiglihii dilay wiilkiisa dadkii deganaa xaafadda uu ka dhacay dilkaani ayaa sheegay inay si weyn kaga argagaxeen falka naxdinta leh waxayna sheegeen ilaa haatan inay garan laayihiin sababta ka dambaysa inuu nin wiilkiisa gowraco xogaha ayaa intaas ku daraya in sababta ka dambaysa inuu ninkan wiilkiisa gowracay ahayd kadib markii muran uu soo kala dhex galay ayadana taas markii dambe ay sababtay inuu aabaha wiilkiisa dilo sidaan kale ay ahayd markii asbuucyo ka hor ay magaalada Kismaayo ay booliska maamulka Jubbaland ku soo qabteen haweeney dishay ninkeeda maamulka Jubbaland ilaa haatan wax war kama soo saarin dilalkan kala duwan ee ka dhacay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose bariyihii dambe ayaa geeyiga Soomaaliyeed waxa ku soo badanayay dilalka isku geysanayaan dadka ehelada